Assalaamu calaykum walaalahey qaaliga ah, waa idin salaamay dhammaantiin meel kasta adduunka joogtiinba. Waxaa idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin. Waa walaashiin Hinda, kanaalka igala socotiina waa Simply Hinda. Maantana waxaa idin wadaa part 3. Part 2 waxaa uga soo hadalna waa ogtihiin inaa cuntooyinkanitoodii hadda ujeedin sawiradooda dhan in la joojiyo oo yani waxyaabaha burkacadka laga suubiyey, waxyaabaha sokorta ku jirto, cuntooyinka diyaarka ah, macmacaanka, waxaasoo dhan qofka inay joojiso waaye haddii ay rabto inay miisaan iska dhinto. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan dhahaan haddii waxaan oo dhan la joojiyo maxaa la cunaa? Wallaahi waxa la iska joojinayo iyo waxyaabaha la cuni karo waxaa badan waxyaabaha la cuni karo. Sida hadda u jeediin qudaar allaal qudaartay noqoto oo dhulkaas ilaahay ka soo baxdo waa la cuni karaa. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan qudaarta ka helin, marka isku daya inaa yani isbartiin maadaama hore aanan badankiina aan qudaartaas aan u cunin oo dad yani badanaa aan ku nool carbohydrate iyo protein keliya. Marka inaa isbarno qudaarta meel alaale meeshaan joogno qudaar la'aan inay jirto aan u maleemayo. Ilaahow xati ka dhig maalinta inaa heshid 2 qudaar oo kala nooc ah. Maxaa yeelay jirka u baahan dhereg badan lagu helayaa, baahi badan ciyo ku qabo meeso. Marka qudaartii ka cagaaran tahay isugu dadaala. Marka qudaarta la karinaayana waxaa soo hoosgalaya ayadana ansalaatooyinka kala nooc ah. Ansalaatada ka cagaaran tahay way ka fitamiinaad badan tahay. Waxaa kaloo la cuni karaa digiraha kala nooc ah iyo cadaska. Digirta marka waxay ku xiran tahay nooca adiga heli karto, nooca markaasitoodii aad ka heshay. Digirta gaduudan hadday noqoto, beebesheeda hadday noqoto, digirtaas madowda, cadda, noocyo kala nooc ah. Masha Allah. Quruxda horta kaaga daranba masha Allah wallaahi. Cadaska hadhihin qamadiga noocyadiisa kala duwan. Waxaa kaloo ayadana muhiim ah in la cuno borotiin. Borotiinkaasoo ka imaan karo hilibka gaduudan, malaayga, doorada ama ukunta. Maxaa yeelay qayb weyn oo asagana ka qaat miisaan dhimista sida jirka inuusan kaa dabcin, timaha kaa daadanin. Marka multivitamiinkana muhiim waa in la qaato. Maxaa yeelay qofka marka is caateynaysa jirkeeda waxaa ka baxayo biyo badan. Biyahaas badanna waxaa raacayo fitamiinaad. Marka waxaa loo baahan yahay fitamiinaadkaas baxay booskooda wax soo galo. Haddii markaas aad qurbaha joogto kale waxaa u baahan tahay vitamin D oo qorax badan aadan arkin. Vitamin D-ga waxyaabo badan oo maxaa la dhahaa u fiican yahay lafaha, murqaha, waxyaabo tiro badan oo inta lagu soo koobi karin. Cuntooyinka vitamin D-ga laga helana waa kuwaanaha iyagana. Waxaa kaloo u baahan tahay haddii aad tahay qof markasta daal dareemto, vitamin B complex u baahan tahay ama just B2 alif hadaa heli karto. Asagana vitamin B waxaa laga helaa cuntooyinkan malaayga, digirtaas dhamacada la dhahaa. Haddana waxaa u gudagalaynaa waxyaabo aad u baahan tahay oo kaa caawinayo miisaanka inuu kaa dhaco. Waxaa ka mid ah apple cider vinegar iyo qaxwo qaraar. Waxaa kaloo ka mid shaaha cagaaran. Faa'iidooyinkoodana inta laguma soo koobi karo. Waxay kala suubiyaan abateedkana way xiraan. Marka haddana waxaan ku bilaabaneynaa saliidaha wax lagu dalacan karo. Saliidda saytuunka. Waxaa kaloo wax lagu dalacan karaa saliid qumbaha iyo saliidda avocado-ha. Waxaa kaloo la isoo weydiiyey sidee loo cuni karaa cuntada maraq digaag la'aan. Maraq digaag waxaa jiro oo qudaar ah anigoo kale kana isticmaalaa. Qasabna maaha inay shirkaddan ahaato. Waxaa xun keliya maraq digaaga laga suubiyo doorada iyo hilibka kale. Marka kanoo kale dhadhan kugu yeelaa. Waxaa kaloo isticmaali kartaa xawaajiyada kala nooc ah. Waxaa hore u isticmaali jirto kala cuntooyinka caadiga markaa cuni jirto hadda iska joojisay. Xawaajiyada u isticmaali jirto dhan waa isticmaali kartaa haddii noqoto kabsarta, toonta, waxaasoo dhan. Wax allaala waxaa jeceshahay ku darsan kartaa. Si markaasitoodii cuntada dhadhan kugu yeelato.
haddana waxaa kaloo idin tusinayaa waxyaabo yaryar ah oo hadaa yacni markaas awoodid ama aa heli kartid oo hadhow ku caawinayo. Dhinaca waxay kaa caawinayaan miisaan dhimista, dhinaca waxay kaa caawinayaan hadaa rabtid inaad cuntooyinka cunaysid qaar iska kala bedbedeshid oo kale. Waxaa kamid ah waxyaabahaaseyto loosaska, miraha yaryarka ah, loosaskan inay ahaanin isku day kuwo lasoo duubay oo kale oo saliid lagu soo daray iyo cusbo ma ii sheegtid oo sidooda naturalka inay ahaadaan isku day. Waxaa kaloo kusii dheer hadaa heli kartid chia seedska iyo flax seedska. Waxaa kaloo dhihi rabay yogurt hadaa lacala inaa isticmaashid rabtid oo kale ha ahaado yogurtka aanan lahayn dhadhanka oo plainka ah, haduu rabo ha ahaado full fat ama haduu rabo ha ahaado low fat. Laakiin waxaa xun in la isticmaalo la dhahay zero fatka, waxaa ku badan sokorta. Marka waxa zero laga dhigo wax kaloo waxaa jiro lagu bedelo, marka waxa lagu bedelayana waa sokor. Hadda suuqa tag oo kale adiga kasoo qaad isbarbar dhig zero fatka midka ah iyo midka full fatka ah yaa sokor badan. Fiiri waxaa sokor badnaan doono midka zero fatka. Marka haddana waxaan soo galnay dhinaca fruutada. Fruutada marka waxaa u cunaysaa sidii macmacaanka oo kale, siiba fruutada ee macaanka ku badan tahay mooska, canabka, cambaha iyo wixii lamid ah. Maxaa yeelay jirka markay galaan la dhahay jirka wuxuu u fahmayaa ma ii sheegtid sokor oo kale, kista yar oo fitamiinaadka uu ka qaadanaya jirka, laakiin macaankii sokortii oo kale oo la mid ahaana. Marka qofka waxaa laga yaabaa dadka qaar inuu dib u dhigo markay miisaanka inay iska rida rabto. Marka 3 waqti hadaa wax cuntid oo kale isku day inaa hal waqti camal aa ka cuntid fruutada, ama waxaa cunaysid aa ku darsatid oo kale hal waqti camal si nafta aa ugu qancisid oo markaas u tabin macmacaan oo kale. Teeda kale waxaan arkay gabdho dhahayo hurdada noogu yar, hurda yaridana way keentaa horta in oo lagu cayilo. Waxay kale keentaa baahi badan, waxay kale keentaa inaa maanta dhan wax la raadiso macmacaan raadiso. Marka insha Allah hadda saan u maleynayo intaan waa isla fahan. Marka part 4 waxay noqon doontaa qaabka oo loo cunayo raashinkan aan soo sheegay, qiyaasta laga cunayo, inta jeer oo loo cunayo. Haddii aad su'aalo kala qabtiin hoos iigu soo qora insha Allah. Cajalada dambe aan kusoo dari doonaa jawaabaheeda. Marka waa in salaamay dhammaantiin.